السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bulshada Soomaaliyeed meel kastoo dunida ka joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka arrimaha bulshada qaybtiisa markhaatiga nool oo aanu mar walba ku soo bandhigno dadka Soomaaliyeed ee duruufaha adag la daala dhacay qisaskooda iyo sheekooyinkooda inay bulshada la wadaagaan sida kuwa kale loogu digo waxaa noo soo dambeysay wiil Soomaaliyeed oo xaalad khatar ah ay soo food saartay oo markaa ay ku kaliftay nafta siduu u badbaadsho inuu kaadi cabo caawa barnaamijka waxaa igu martiyeen Naciima Cali oo ah gabar Soomaaliyeed oo daayar oo iyadu haatan joogta dalka Mareykanka laakiin sheeko xaqiiqatan dareen xambaarsan nooga waramaysa 8 gabdhood oo Soomaaliya oo ayay xaaladoodu halis ku sugan tahay aad caawa wax ka ogaan doontaan Naciima kamid ah 13 sano ayadoo jirta aabaheed la dilay oo ahaa askari u shaqeynayay dowladda Soomaaliya ee qarankii burburay dilkii aabaheed waxa uu ku dhaliyay in ay dalkii ka tagtay iyo amni la'aanta ka jirtay waa ayaan darrada ragga Soomaaliyeed ay 30 sano la soo hayay ay faraha ku hayeen ilaa iyo haatan oo 21 sanadku uu yahay 2021 aan siyaasad fadhida oo xasiloon aan wali faraha lagu haynin waxay tiri gabadhii Soomaaliyeed heestay dalays Allah u naxariistay ilaan Afrika ay hurudooy haliyeeyadeedii hurudooy wali wayna hurudnaayo waaguma nooma bari saaxiibayaal haddaba si kastaba ha ahaatee Naciima ayaa 23 sano iyadoo jirto go'aansatay inay dalka hooye ka tahriibto waa kaligeed 7 wadan ayay isku maraysaa doon ayay biyo ugu soo galayaan niman Isbaanish ayay inay gacanta u gasho halis ugu jirtaa oo jirkeeda ay booba waxayna qaadatay go'aan halis ah Soomaalida doonta saaran waa 250 qof ku dhawaad wiilal u badan hase yeeshee wiilasha Soomaaliyeed ayaa ahaa kuwa haliyeeye ah oo ka soo baxay xilkoodii iyo in ka badan go'aan adagna qaatay Soomaaligu mar walba waa geesi markay duruufo soo food saartana oo ragga imtixaan adag uu soo maro dadka waa la kala bartaa wiilashaan aan garanaynin ayaa waxay muujiyeen wanaag fara badan Naciima ila soo dhaweeya oo nolosheeda nooga waramaysa isay u dhaceen Naciima soo dhawow waan dhawaay walaalkay qaali ilaahay maxay ahayd habku barakeeyo barnaamijkan aad diinaysidna aad ayaan ugu faraxsanahay walaalo maxay ahayd waxaan salaamayaa guud ahaan Soomaalida oo dhan walaalahay waxaa dhacdo aad u xanuun badan oo weligay aan hilmaami karin anigoo wadankayga hooyo joogo ayaa aabahay la dilay waxa loo dilayna sababta ay tahay oo kaliya ay tahay maxay ahayd reer qurac iyo reer qansax darteeda marka waxa ahayn 7 gabdhood iyo hal wiil ahayn oo aabahay nin askari ah oo wadanka u soo halgamay oo haliyay ah oo maxay ahayd raggii wadanka dhiig u daadiyay ay kamid ahaa marka military uu ka tirsan aabaha maya booliisku ka tirsanaa marka murugada waxa adduunyada waxa igu murug badneed markuu aabahay gacan walaalkiis uu hadana uu ku baxay oo maanta qof kale aan iga dilin marka murugadaas darteeda ayaa waxay u jeedaa gacan walaalkiis nin Soomaaliya dilay dad Soomaali u baadishay hadda cid igu soo duushay oo kale ma laha barakacayga iyo dhibaatadeedii iyo dilkii aabahay iyo annaga caruur yar ah hooyaday maxay ahayd qaxi iyo dhibaatadina uu sii socdo ayaan wadankii go'aansaday inaan iskaga soo baxo aniga oo nolol raadis ah noloshayda nafteeda baan haligay ma ogeey nolol ma jirin halkaas su'aalan ku weydiiya haddii dalku nabad ahaan lahaa xaaladda ay Soomaaliya markaa waaga ku jirtay aysan ku jirin ma laga yaabaa inaad dalkaaga hooyo ka soo qaxi lahayd dalkayga hooyo kama soo qaxeen sababta ah waxaan lahaa beer aad u weyn lahaa waxaan cuni jiray ka baxa ayaan cuni jiray waxaan cuni jiray xoogga xalaasha oo aabahay u leeyahay waxaan lahaa daris aad u macaan ee dhalinyaro gabdho iyo wiilal isugu jiro oon isla ciyaarno oo isku faraxsannahay haddana farxaddaas yata ma haysti farxaddaas hadda aan kula hadlayo waa gartay 7 wadan baa soo martay oo Dubai ay ugu horeyso wadamada aad soo martay waxaan rabaa inaad wax yar noo dulmartid waxyaalihii aad kala kulantay dabadeedna arrinta halista ah ee aad u gashay ay kugu kaliftay inaad doon raacdid adigoon dabaal aqoonin gabar ah 7 kaloo gabdha ay ku heliyaan iyo rag Soomaaliyeed aad doontaa naftaadii ku biimaysa adoon dabaal garanaynin haddii doontaas aadan raacininna
meeshaa lagaaga tegayo nimanka isbaanishka ama isbaanishka ku hadlaya halkaa jooga ee latin america dega in ay maaragtay ku dhibaateeyaan aad ka baqanaysid intaana u gudbinin bal waddamadan toddobada aa soo martay noo dulmar magacyadooda horta waxaan soo maray dubay aan soo maray iyo ruushka nicaragua soo maray waxaan soo maray colombia soo maray guatemala aan soo maray waxaan soo maray nicaragua aan soo maray salvador aan soo maray adiga latin america iyo central america dhulka laisku dhahan soo maray haddana iskama marayn intaasoo dhan xabsiye ayaan mudanaya xabsiye ayaan galay nooga waran maxaa ka xasuusataa xabsiyada aan galay waxaan ka xasuustaa xabsigii oo aan galay waxaa ugu tegay oo maanta igu dhalisay inaan maxay ahayd barnaamijkan inta nasiib u yeesho waxay ahayd dad soomaali oo hore meesha usoo maray ayaa waraaq waxay noo qoreen qoraalkaasita oo ah taleefon qoraal ah si aan ula xiriirno qofkii kale oo annaga aan ku badbaadi lahayn oo waddadii aan mari lahayn noo tilmaami lahaa marka xabsiyada markaan kasoo baxnay kadib waxaa dhacday in aan meel iskugu imaanay meeshaasita oo doon laga raacayo doontaasita oo halisteeda leh oo alwaxay laga sameeyey iyo 110 iyo dhowr qof oo hal doon wada raacayo taas oo murugo igu dhalisay oona ogahay doontii inay ku isheen dad badan oo soomaaliyeed oo ilaa iyo hadda raq iyo ruux meelay nafta dhigeen la garanaynin aniga oo aad ugu qaracmay doontii dhahay doontan waa doomihii aan arki jiray haddana waxaan fiiriyay nimankii meesha joogay doontaan arki jiray naciimay doonta waxaan arki jiray doon ayaan telefishinada laga soo sii daaya la dhihi jiray intaasoo doonaa qalimantay intaasoo dadaa baaba'ay intaasaa meedadkooda laga guraayaa magaalooyin aan annaga garanay marka doontii wadnaha waa siini waayey haddaan inta fiiriyana walaalahay oo dhanna waa iga tegayaan aniga oo keligaa meesha kusoo haraaya waxa aan ku haraayana waa nimana afkooda garanayno isbaanish ah waxa aan kala kulmaayana aan ogahay maadaama aniga aan gabar ah waxay nafteyda isiisay inaan doonti raaco oo walaalahay meel kula dhinto meeshay ahaataba waa gartay halkaas igu yara kaadi daawadayaal waxaad maqlaysaan ama daawanaysaan barnaamijka arrimaha bulshada qaybtiisa markhaatiga nool oo ah barnaamijkan ugu talagalnay inaanu kusoo bandhigno tacadiyadda iyo dhibaatada iyo xaaladaha adag ee dhallinyarada soomaaliyeed ee noloshooda inay wax ka bedelaan raadinaya ay marayaan maalin walba tani ma ahan tii koobaad iyo tii labaad kuwo hore ayaanu ka samaynaa soo daawan kartaan waadna nala soo xiriiri kartaan shaashadda macluumaadka ku yaalla ayaad nagala soo xiriiri kartaan si aanu markaas u baahayno sheekooyinkiina kuwa positiveka iyo weliba kuwa aan wanaagsanayn laakiin u baahan in darsi laga barto waa gartay naciimo waxaad taagan tahay meeshii doonta laga raacayay doontu waxay ka samaysan tahay masaabiir iyo alwaax la isu geeyey waxaa xusid mudan hadduu ilaahay ku badbaadinayo wuxuu kugu badbaadshamo waayo waad xasuusataa nebi nuux berigii doontii la saaray waxaa la yidhi waxamalnaahu calaa daati alwaaxin wa dusur alwaax iyo masaabiir la isu geeyey ayaanu nuux ku badbaadinay laakiin tani taasoo kale ma ahan way ka liidataa xaaladeedana ilaahay baa og waxa dhacay bal dhegeysta gabadhaano nafteeda u baqaysa in hilibkeeda la boobo iyo doontii oo dhaqaaqaysa ku soconaymo mar allaale markii aan doontii ee anbabaxday adi abaarihii 4 habeenimo meelahaasay ahayd adiga 10 ay ahayd meelahaas oo habeenimo ay ahayd markii anigana 4 saac lagu dhaho ay ahayd markaan dhaqaaqnay oon baddii bartamaheeda sii marayno roob ayaa imaaday dhibicda roobka oo badda gudaheeda aboowe siday u weyn tahay hadday aragtid waa yaabaysaa roobka gubada oo kale waa dhibcaha waaweyn aad ayay u dhibco waaweyneed markaasay doontii buuxisay markaasay wiilasheenii inta biyihii ayakiyaa dhuraaya ayakiyaa daadinaya waxaa kaaga sii daran shaagga agteenu ku ciyaaraya doontii gudaha ka galaya hoosta ka galaya grr uu ka siinaya doontii dhul uu ruxaya wuxuu rabaa inuu annaga naga daadsado una cuno marka libax badeedkii waa waxaa samaynaya libax badeedkaa waxaa samaynaya annagiyo maxay ahayd cabsida iyo roobka iyo dhibaatadana haysa aad yaabaysid ayaa diyaaradna soo karmartay yacni waxaan nafteena waxaan dhan haba nala xiray meel un diyaaraddaasito hana badbaadiso markaasaan dharkii lulnay markaasitay
kuwii doonta bac madow nagu dabooleen waxay diidayaan in diyaaraddii way nagu kormeereysatay inayna aragtay damacday wayna arki weysay sidii ayaan maxay ahayd doontii waxaan ku tagnay magaalada maxay idiin qarinayaan oo bacda laydinkugu daboolay oo kaalmada aad weydiisanaysaan diyaaradda ay u qarinayaan noo sheegi kartaa waxay u qarinayaan waxawaa aykiya gacan galaya aykiya la xiraaya sababto ah aykiya dadka soo haligay oo doontan soo saaray ilaan sharci la'aan bay ku tahriibinayaan sharci la'aanna way nagu tahriibinayaan oo dadkii ay haligayaan marka waxaa dhacday dhibaatadaas annagoo ku jirno oo allabarigii iyo baryadii naga dhammaatay iyo ducadii naga dhammaatay iyo ashahaadii naga dhammaatay ayaa waxaan helnay magaaladii la dhahaye blufen la dhah waddanka oo nicaragua blufen markay noo muuqatay oo nololkii aan aragnay ayuu wuxuu yidhi data ma daadanaynay dhaheen wiilashiyaa diideen maadaama annagoo walaalahooda gabdhahe la soconno waxay ninkii ku qasbeen nimankii waxay ku qasbeen in ay doonti dhoweeyaan imise gabdhood oo soomaaliya saarnayd annaga waxaan ahayn 8 aan ahayn gabdhaha gabdhihiina waa 8 waa gartay 8daas gabdhood waxaad haddaa ii sheegtay inay qaarkood hooyoyin ahaayeen da'dooda maxaad ku qiyaastay kulligiin marka la isku siin daro ugu yaraan ilaa ugu badnaan annaga gabdhaha kulli gabdhahay wada ahaayeen laakiin gabadha ugu da'da weyn oo maanta aan leeyahay 26 jirka ma ay weyneen markaas sababta ah maxay ahayd kulli gabdho yaryar ay wada ahaayeen hal gabaroo hooyaa nagu jirta hashaas gabarna ayadoo yar ayaa maxay ahayd hooyanimada ilaahay siiyey waa gartay waxaa dhacday haatan bacdii baa laydinku jaday waxaa laydin leeyahay ka daata doontii oo halkaa ka dabaaltaga adigu dabaal ma taqaanid inaad dabaalatidna waa ku khasban tahay raggii soomaaliyeed ee dhallinyarada ahaa ayaa go'aan raganimada qaatay aniga dabaal ma aqaani gabdhihii kalena waa iga daran yihiin marka waxay qasbeen wiilasheena qaaliga ah oo geesiyaasha ah waxay qasbeen in ay nimankii doontii ay na dhoweyso waxay dhaheen dagaal ayaan la gelaynaa ay dhaheen hadduu rabo inta inuu nagu daadiyo sababta ah ma dhowo nololkaas ma dhowo hadda wax dhow ay u egyihiin ay dhaheen marka sidii ayaa doontii lagu dhoweeyey markii lagu dhoweeyeyna wiilasheena allaha qayrsiiyo ayakiyaa boorsooyinka noo qaaday ayakiyaa gabdhihii soo badbaadinayo nimanka doonta wada meeqay ahaayeen ya nimanka doonta wada meeqay ahaayeen 3 ahaayeen waa gartay dadka doonta dhan wada saarana imisay ahaayeen adiga 110 iyo wax baa ahayn 52 Soomaaliya laakiin 52 Soomaaliya waxaa la tirin karo oo annaga Etoobiyaanka meel walba oo joogna annaga gadaasheena socdaan mar walba annaga nagu jid weligeed basaasay ahayd waa gartay marka annaga nagu jid maraan wiilasheena wax gooyo wiilasheena daba socdaan hadda wax walba oo ay ka amarna hataa way yeelaan markay annaga aan doorka wada soconno waa gartay shandadihii baa laydin qaaday maxaa dhacay marka waxaa dhacday magaalada blufen markaan tagnay xeeb dheer ayaan ku orodnay oo qof maxay ahayd waagi markaasuu soo baryayaa si aan xeebtaas heta booliiska joogo ay noo arkin xeebtaan ku cararnay nin duur joogaan helnay kii aan la fariisanay intuu gabalka ka dhacay aan sugaynay markuu gabalka dhacayba doomo kale annagoo noola soo diyaariya oo nala qaadi rabo booliiskiaana qabtay marka sidaasaa xabsigii aan ku galnay oo waddanka nicaragua magaalo madaxdeeda managua ayaa sidii nalagu gudbiyey maxaad kala kulanteen xabsigii waxaan kala kulannay adiga cariiriyaan kala kulannay meeshii waxaan ugu tagnay qoraallo badan waxaan dhahay soomaali sidaanay maskax u leedahay may waddankeena nooga xaliso qoraallo badan aan meesha ugu ku kulannay ninka maqaliska ugu fiican telefoonkiisii af soomaaligu lagu qorayaan kula kulannay meeshii maxay ahayd annaga waxaan noqonay dad marka kuwii kaloo soomaalida inka soo horreeyaa fariintaas gidaarka ku qoro inkaga tegey gidaarkaas fariintii ku qorneed ayaa annaga qaadanay gartay af soomaali wey af soomaaliya 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 lagu qoray oo number ahayn oo number marka alxamdulilah marka kuwiyo wax baa number ahayn miyaa tiri marka waa la isbeeliyey miya waa la isbeeliyey labo si aan loo masaxin miya ujeedada marka si aan loo fahmin lambar hadduu yahay waa la fahmi karaa laakiin si aan loo fahmin ay u qoreen
daawadeer waa maqlaysaan soomaalidu saasay isku gacan qabanaysaa fartiimahaasaa la isaga tegayaa waxaa xusid mudan oo aan jeclahay inaan yaro dul istaago una mahadceliyo ilaahay ka sokow wiilasha dhallinyarada soomaaliyeed ee diiday inay doonta ka degaan ayadoo yaxaaskii uu ku dul wareegayo mugdi ay tahay bac dusha looga daday roobkii uu ku da'ayo nimankii saddexdaa intay handadeen ay yidhaahdeen waa habeenkii xalaya tegey soomaaliga waa kaa weeye ma aha kuwa leh waana lagu soo duulaya waana la qabsanaya iska baqanaya aad moodid maaragtay inay naftu halkaa u joogto soomaaliga dhabkaa kaa weeye waa gartay fariintaasay gidaarkii ku reebeen waa idinkaga tageen nambarkii baa garaacday mukhaliska walaalkay ismaan guure ilaahay khayr ha siiye hogaamiyaheena annaga ahaa marka lambarkeennii aan qaadanay ninkii aan wacannay markaa ninkii wacannay oo magaaladii aan degnay waa ka guurnay magaalo madaxdii markii nala fasaxay meel kale aan degnay meeshii marka kuwa ayaa muqalis iskaga keen dhigay oo na qayaanay oo ninkaasaana soo dira dhaheen nin inaag isla socdo annagoo sagaal wiil iyo aniga gooniya u degnay marka sagaalkii wiil iyo anigii ayaa maxay ahayd ninkii inaagta isla socdaana qaadeen gaariya nagu qaadeen magaalo kale oo tuulo yarayna geeyeen guri hood ku yaalayna geliyeen waa garta oo hangaralaha yaalla haddaa aragtid hangaralaha gacmahaygu la egya intuu la egya haddaa aragta ayaabays marka wiilashina qolaa la siiyey anigana qolaa la isiiyey laakiin waa laba qol oo isku dheggan oo korna ka furan korna waa iskaga furan yihiin waa garta markaan meeshii ku jirnay oon habeen baraa nala geeyey oo waaga baryay oo gobolka sii dhacaayo waxaan dhahay war meeshaaneeto waa sheekaysanaynaa aniga wiilasha anigana iga warqabaano qol keligee gooni joogo cabsida iga muuqata aad yaabaysid islaah ami meeshaan lagugu soo galaa wiilashina qolay ku jiraan adigana qolkaaneeta murugada iga muuqato ilaahaya maxaad ii abuurtay ayaa maxay ahayd qalbadeeda kusoo dhacayso haddaa markaas intaa aan dhiman lahaa hataa waan raaliyan ku ahaan lahaa markii wiilashii annaga waan tashanay waxaan dhan war hagaaga yar aan wadano inta nalaga baaran lahay meeshaan iskaga cararno ninkiioo dib nooga soo laabanaa meesha kasoo cararnay gawaariyaan soo raacnay meelaan u soconno iyo meel kale ma kala garanayno booliisaana qabtay waxay noqotay inaan haddana meeshii waxaan dhanay annaga meel oo dhaqaalo yaraan raadsanaynaa dad oo xabsi ku jiro oo lasoo sii daayaanna waana la sii daayay meel hoteelaan degnay adiga ninkii dhabti ahaa ayaan helnay waxay noqotay marka inaan magaalada ilaa iyo meel yar oo maxay ahayd bad ah inaan lug ku tagnay noqotay soonna waa la sooman yahay marka halkaa u kaada naciimoy idinkoo duruuftaas iyo xaaladaa ku jira ayaad sooman tihiin oo waajibaadkii ilaahay idin saaray aad xasuusantihiin waa soomanahay sababta waa soomanahay waxawaa anytime aan dhiman karnaa anytime aa meel nalagu xiran karaa anytime ayaa maxay ahayd nalakufsan karaa aniga 9 wiilaa markaanayta la socdaa dadkii awalba meelaan iskugu imaanoo kooxa loo socdayo aniga kooxdeeda waxay noqotay 9 wiil iyo anigaa noqonay marka 9kan wiil ma Soomaali ba kulligood 9 wiil ani aan wada socono Soomaali waay waa kaas wiilka Soomaaliga waa midka ixtiraama gabadha Soomaaliyeed oo aan kufsanin kuna xadgudbin la soco saaxiib waa gartay qaar Allah siiye Cabdixafiido wiilasha Soomaalida wax ka wanaagsan ma jirto wiilasheen markii ay duurka joogaan wax ka macaan badan ma laha markay cilada joogaan wax ka qurux badan iyo wax ka geesan iyo wax ka xaq dhowrid badan walaashood ma laha maxaa u diiday markay waddankeena joogaan daawadayaal waxaa aad iyo aad ii taabtay arrinta ku saabsan rabadaanta soonka iyo gabadhan iyo 9 nin ee dhalinyarada Soomaaliyeed aan raashin haysanin guri wanaagsan aan haysanin safar ku jira dhaqaale aan haysanin marxaladaad ogeedeen soo maray baa haddana sooman qofka mu'minkaasaasa looga baahan yahay xaaladdu markay kharaaraato mafaatiixda ilaahay baa loo dhiibaa and you will never regret marnaba ilaahay maxayto garabkaaga ka bixi maayo ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا إلهي ليه ويلاش الصومالية أماني سياد بنسو دويننا رق الصومالية هلي نماش والوي قانا قبل أيام كجرنا وحان ربا مركا إنا صور جود كبحيسيد انتا وحي كدن بي وحي دعي إيسان مريكا كسوق الشيء بسولو
marka dhibaatadii badneed aan soo marnay iyo maxay ahayd waxaa iigu sii darneed oo iigu sii murugo badneed markii aan xuduudda mexico aan soo gelaynay buur weyn ayaa ku taalay buurtaaseeta oon habeen ma ogay maalin la geli karin saan beero usoo dhex maraynay aan usoo soconnay laag yar ayaan soo dhaafnay buurtii ayaan ka degnay waaga markuu baryaaya waxaan dhahnay intaan ka badan ma socon karno waxaan ninkiina wadaya waxaan ku dhahnay booliiska nooga yar booliiska nooga yara dhahnay waagiyo baryay oo magaalo aan soo galnay waa garta taasoo aniga aan aad ugu faraxsanaa inuu booliisna qabto uuna xiro sababto ah waan nasanaynaa nasashadaaseeto ayaa maxay ahayd muhiim ii ahayd sababtoo xalay oo dhanna waa soo socday shalay oo dhanna waan soo socday waa garta soomaaliya habeenaa soo socoteen marka waxaan rabaa daawadayaasha inaan halkan u sheego muuqaalkii ku horreeyey ee maxamed cali maxamed aanu baahinay waxaad tidhaahdeen qofka aad waraysanaysid waxaan rabnaa sheekadiisa inaad daysid oo aadan soo dhexgelinin daawadayaal waxaan idin xaqiijinayaa inaan ka dhex galo ma rabinin laakiin dadkan waxay soo mareen dhibaato fara badan wax badan baa maskaxdooda daqiiqad walba kusoo dhacaya dabadeedna waxaa badanaya hadalkii nuxurkii baana lumaya marka waxaan isugu soo aruurinayaa waxay tahay sawir guud oo waafiga inaad heshaan iyadoon waxba laga teginin laakiin macluumaadka yaryarka oo aan qisadan ama sheekooyinkan aan hormarinaynin inaan kasoo jarjarno oo markaas in yaroo kooban a heshaan waqtigiina adiin baaqaamino waa gartay ku socolal marka booliiska wuxuu nagu yiri maalintii uuna soo sii daynaya wuxuu yiri magaaladanetiyaal idinku afduubanin tuuga ayaa ka badatay habeenkiina ha soconina marka waxaan joognay wax yaraan joognay waxaa nagu soo gashay ciiddi carafo salaadii aan dukanay annakii oo dhan meesha jameeco ku wada dukanay kuwii aan kasoo tagnay oo naga soo tageen qaaraa maxay ahayd lagu xiray salvador qaarna waxaa lagu xiray ayakana honduras oo ayada markaas dagaal ka socda oo militarigii iyo dhibka ka socda ayaabay sidii ku xirnaayeen mar danbaa lasoo sii daayay kulli wixii oo dhan meeshaasaa iskugu wada imaanay waa gartay see maraykan kusoo gashay marka maraykan waxaan kusoo galay waa soo baxnay mexico marka aada u weeyaan waddan aad u weyn waaye waxaan kasoo galnay borderkii kiisa kalaan imaanay markaan imaanay kadibaan marka aan ridii waxaan weydiisanay in ay mexico waxay dhaheen naga baxa waraaqeena siiyeen anaga qaxooti muqaabilnay dhaheen marka waxaan la imaanay marka xuduudkii oo maraykanka US borders aan imaanay markaa imaanay aan waraaqihii tusinay waxay dhaheen halkee u socoteen markaasaa waxaan ku dhahnay meel aan nabad ayaan u soconay meeshay ahaataba imise qof baa tihiin markaas soomaali ahaan marka annaga markaaseeta soomaali waxaan ahayn waa badneen ilaa iyo adiga markii kulligan aan isu imaanay oo isku keenkeenay adiga waan badneen ilaa 100 waan gaarayna soomaali qaar aan jidadka iska helnay qaar dhexda nooga soo darsoomay qaar dhinaca biliis ka soo galay marka waan la soo kaxeeyey sandiyago xabsiyaana lagu xiray oo CCA la dhaho kaas ayaa 9 bilood ku xirneen dadka qaarkiis aan isla soconay sharcigii waa loo diiday oo Canada u gudbeen dadka qaarkoodna waa la siiyey adigu dadka la siiyey ku jirtaa aniga marka dadka la siiyey 9 bilood kadib aan ku jiraa waa gartay waxaan ogahay fartiin aad rabtina u gudbisay oo adiga codsatay waa jirta dhalinyarada Soomaaliyeed ee barnaamijkan daawanaysa iyo waalidiintooda adigoo daqiiqad kusoo koobaya maxaa oran lahayd waxaan dhihi lahaa horta walaalahay ha soo tahriibina inta aad adduunyada ku nooshihiin ha soo tahriibina walaashay saaxiibaday qaali ah ayaa waxay tiri aniga ma baxaayo waddankan ka shaqaysanaya lacagteeda ayaa waxay gelisay 2 boos labada boosaa lacag fiican u dhalay dukaanay haddana maxay aad furatay haddana boosas ayay lacag yar ku gadatay haddana boosaska ayaka ahaa waxay ii sheegtay shalay galabtii aan la sheekaysanaya waxay ii sheegtay in ay lacagtay ku gaday 100 jibaarkeeda ee hadda loo taagan yahay marka waxaan dhihi lahay walaalahay dhulkeena iimaansada sharafta aad bannaanka ku leedihiin jaceylka walaalahay qabiil ima ay weydiin wiilasha walaalahay ha ahay oo boorsada ii waday oo halka qol wada seexanaynay oo wax isla cunaynay ilaa ay hadda qof qabiilkayga i weydiin ma jirto inaadan qabiil isweydiinin in aad isjeclaataan
in sida wanaagga bannaanka aad isu jeceshihiin aad gudahan isu jeclaataan dhalinyarada la hadlaya qaasatan waxaan jeclahay in ay xaafadda intay ku walaaloobaan ay dhulkooda quruxsadaan midna ay taageerin reer iyo reer dhul midna ay taageerin aayaheena ay ka taliyaan si aan waddankeena ugu soo noqonno waa gartay hagaag daawadayaal waxaad maqlaysaan Naciimo Cali oo ah gabadha dhibaatada intaa la eg soo martay 8 wadan isku soo martay iyadoo gabar yara aabaheed lagu dilay magaalada Muqdisho yaraanteedii iyadoo 13 jir 23 sano iyadoo jirtana soo tahriibtay duruufta intaa la egna soo martay wiilasha dhalinyarada Soomaaliyeed haddii uu barnaamijkan idin soo gaaro waxaan jeclahay nala soo xiriirtaan si aan bulshada Soomaaliyeed ugu soo bandhigno wanaagiina iyo sidaad gabadha Soomaaliyeed u garab istaagteen mararka qaarkood waxaan maqashaan wiilal Soomaaliyeed baa gabar kufsaday wiilasha Soomaaliyeed kuwaas ma matalaan waxaa matala kuwa Naciimo ay ka hadlayso iyo kuwa kale oo fara badan oo aan weligeyn soo koobi karaynin kuwaas ayaa matala gabdhaha wiilasha Soomaaliyeed meel kastoo dunida ka joogaan Naciimo waa ku mahadcelinaya 100% waana ku faraxsanahay inaad xiriirkan ila soo samaysay barnaamijkaana naga ogolaatay in aanu kaa qabanno si aanu bulshada Soomaaliyeed u wacyigelino daawadayaal idinkaa daawanaya aad iyo aad baan ku mahadcelinaynaa waa barnaamijka arrimaha bulshada qaybtiisa markhaatiga nool waxaad goobjoog u ahayd la wadaag bulshada Soomaaliyeed wanaag iyo xumaan waxay doonaanba ha ahaadaan si wacyigelin loo helo haddii ilaha yidhaahdo wariye cabdifataax cali shirwac ayaa barnaamijkan idiin soo saaray axmed cabdixafiid ayaa adidgareeyey anigoo cabdixafiid idinla socodsiinayey adiga ayaa daawanayey intaanu kanoo kale kulmi doono waxaan kaga tegayaa guul iyo gobonnimo waa mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullah waa mahadsantahay walaalo adigana jazaak allah khayr hawsha